شرفت الله وحي شروطها توقي هكذا نبوحينا يا إن شاء الله تعالى كبقى معيو حوالي لقارنا وما صوتونا أنا لفتقي حوالي لقارنا حريضه يا الله dalka iyo dadkaba isagoo daane dalka iyo dadkaba isagoo daane duqoydiya wax garadku hala doorto maantana waxa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayo musharaxnimada aqoon-yahan Muxyidiin Cabdi Shiil oo kamid ah bahda dhalinyarada aqoon-yahanka ee Somaliland musharaxan golaha wakiilada ee doorashooyinka inagu soo socda ee 2026 ayaa xafladiisa shaacinta waxa maanta ka soo qayb galay salaadiin oo qaal waxgarad waayeel haween dhalinyaro iyo marti sharaf kale iyo waxaana yiraahdeen maanta waxaan joogaa madashii labaad ee shaacinta han musharax oo beeshu leedahay oo kaalintii labaad inankan mid hore waan ka qayb galay maantana kii labaad baan taaganahay nin walibana aqoontu leeyahay la soo arooraya wax la samaynayaa ma jiraan nin waliba aqoontu leeyahay kartida leeyahay ayuu cilweynaha la imanaya maanta hankiisa in qof waliba soo bandhigo waa mid daruuriya oo loo baahan yahay waxaa la iman doontaa iyo meel badan bay iskugu tagaan maalintays hawshu halkeeda timaado kiyaa la qorayna waa qorayahay oo cidna talada ilaahay lama yeelanayso haddana waxaa nin waliba qaadan doonaa inta uu meeqaankiisa cilmigiisa aqoontiisa iyo kartidiisuba tahay aan gaadhno laakiin maanta waxaynu maragunahay hanka mujaahidkaadan oo in badan siyaasadda isna ku soo jiray oo howlo badan aan aniga lafteeda soo wada qabanay oo waxyaalaha howlo badan aan ku kulannay inaynu maanta markhaati ka noqono hankiisa waynu aragnaa waynu joognaa soo maaha waayahay waxaan leenahay ilaahay ha ku guuleeya hankaaga ilaahay ha ku guuleeya hankaaga nin xoog weyn ayaa la yidhi haddana waxba ilaahay ma sin reerkii markaasay tiri ninkani inantayda waa uu hagranayaabay tidhi ma garanaysaa cabdallah bakar 2 musharax iyo 4 musharaxba uu soo saari karaa laakiin dhaliisha waanu leenoo hagrasho yar baa jirtay imikana waanu isa saxnay oo waanu didagoynay oo waanu toosannahay ninka aqoon-yahanka ee aanu wadno iyo kuwa kaloo badanba insha Allah taala waxaan ku dadaalaynaa inaanu soo saarno allana waa inoo rumayn doonaa riyadeenna isaguna waa nin kartideedii aqoontiidaba la Muxyidiina soo dhawow waan adeer ku leeyahay waan ku ducaynayaa Allah kugu asturo Allah kugu sharfo ilaahay kii ku guuleysta ka dhigo aqoon leeyahay عليه كسودو أي تاجرنا أي نقرب قلنا إنك قويانك ولا كنا هو يهوى نسينا هي يهوى نسينا أي نديك اللي بشيء ما تصاصرنا سودو وكلنا ما ترى ودياري هاي روحان كيس هالك تسي وضو وحن كبورينيا ضمان dadka halkan fadhiya inay taageero buuxda muujiyaan ma hadaan nahan u baxdo waxbarashada inteeda waa ka soo baxaynaa intiina waxaan soo dhaweynaynaa Muxyidiin Cabdi Shiil Bulaale oo golaha baarlamaanka waxaan ku leenahay ku soo dhawow Muxyidiin ku soo dhawow han fiican baad keentay annaguna waan kugu garab taaganahay santiin hal qodob baan oranayaa maanta anigu Mustafa Haan anigoo maanta ku hadlaya afka tolka reer Xuseen waxaan leeyahay maanta Cabdallah Bakar waxaan leeyahay waa markii ugu horeysay ee nin reer Xuseen maanta uu sharaxan yahay marka waxaan leeyahay maanta war nala dhisa in badan baan nala dhisnay waxaan leeyahay maanta nala dhisa oo noo tanaasulan leeyahay maadaama tanaasul badan aan sameynay waana markii ugu horeysay oo meesha waliba waxa jooga qaashi iyo salaadintiba way joogaan marka insha Allah waxaan idin leeyahay musharaxa inuu dhisno heeliyo baan bab istaagno kaaga Allah ku aqbalo waxa ku dhalay aabo wanaagsan oo dulqaad badnaa aabo wanaagsan
oo dulqaad badnaa oo karti badnaa baa ku dhalay xasan shiil allah u naxariistay waxaan ka rajaynayaa adiguna inaad dulqaadkii iyo la timaado kartidiiba marka waxaan salaamayaa oo aan ku celinayaa mar labaad solaadiinta waxaan leeyahay berigii hore cabdallah bakor wuxuu odhan jiray cabdallah bakor waa ilka gamaan ilkaha gamaanku ma kala dheera oo ma kala gaabna yuu odhan jiray odayaashii hore cabdallah bakor iminka waxaan leeyahay cabdallah bakor baan la hadlayaa wuxuu yidhi cabdillaahi suldaan walle ama calan jiro caama baad ahaan ama calal maryaha la'ayna baad ahaan walle cabdallah bakorow ama reer jiro oo waxaad ahaan ilkihii gammaanka ee odayaashii hore yidhaahdeen si ah oo isku siman walle ama waxaad ahaan calal maryaha la'ayna waxaad ahaan dadka ummad ka raha horaynu uga hadhnay inagoo fariyayna intaynu leegnay la yaabo xildhibaan baynu soo saari aqoon-yahan Muxyidiin Cabdi Shiil oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in uu dadkiisa wax badan ku soo kordhin doono haddii ay cod ka siiyaan waxaanu sheegay inuu ku matali doono beesha uu ka soo jeedo musharaxnimada golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa doorashooyinka inagu soo foolay musharaxa golaha wakiilada oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri musharaxnimada maanta ku cusub ay xagga siyaasadda kuma cusbiyo aniga cuduraan la bilaabay anigoo yar halkana waa ku koray hal maanta igu soo booday oo aan isleeyahay maanta هذا الإسلام هاي ما أنت رأتي أو ما تقدر يدرسها ما هكذا ما أنت هكذا وهنا إلى شيء إلا يراتي إلا ما أنت أكسر هنا ما هنا العك دوريو إن القالب صوت أطي أو الإسلام هاي رأيك كرسي تقف وشو القالب كجهش دماغ كجلوس معها وحيقوا عن تلوينها يقرأ كجمهورية السودان لعبة halku maanta taagan yahay inaan ka sii dhaqaajiyo oo wixii aan arkayo ee runtii u baahan in la sii qaado tolweynahayguna tolan maanta u baqanayo oo aan leeyahay xildhibaan wuxuu ku qodaya xaq waxaan doonayaa xaafadda xaqa dee ilaahay u bixin kara xaqa sida lagu helo way adag tahay xaq dad ka maqana ma jiro dad dhaca ma jiraan laakiin tolweynahaygu runtii waa tol adag waa tol isku duuban waxaan ka rajaynayaa maanta sidii isku duubnaantii hore ee isku duubnaan jireen isku duubnaadaan waxa loo wixii hanti aan hayo iyo wixii aan cudud leeyahay iyo wixii aan hanti leeyahay iyo wixii aan aqoon leeyahayba tolkaynan u huro oo xildhibaanada oo maanta ay noqdaan tolkay sidii tolkii la yaqaanay iskugu hayn jirnay iskugu hayo midna ay ahaadaan anigana mid bay noo yihin anu magaalada ku dhashayo cabdal uu biyahay igastay dadku kala qaadqaadaan halkaana u dhaafmay midna way ahaanayaan takala xagga kala laacay la eego xagga kala laba qoran oo mar laactaa leeyahay mar la xagga kala lahayd xagga labada dhinac la sheego laakiin la sheego waa taageero albaabkii la furo waa taageero albaabku waa tigay abdaawno waa bahayo marka waxa la imaanto u baqan maayo tooynayguna intaan fadhida maayo in ka badan oo ay baqayeen kuwa ka maqan waxa la miidiyaha idin soo marnaya bawarkii ka baxda oo bakay qaleen ee ka maarana ma jirto waxa la qodxuwa meeshii laakiin codbaan idinka baahanahay iyo cudud iyo isku duubnaan ruucaantii tooynayga sharafta leh waxaa leeyahay cabdallah horweynahayga in golaha inaga dhex arko oo si sharaf leh oo xildhibaanad ku yimataan aan noqdo oo lagu soo hiito anigu waxaan ballan qaadaya xildhibaan cadaalad ah inaan noqdo oo ummad u siman tahay meeshi kasta wax galaana inaan ka soo saaro way aqoonteedii baan u leeyahay 17 sano waxaan gudoomiyaha degmada 26 Juun ee xisbiga Kulmiye 17 kiiloomitir soo saaray uu soo bixi kursiga la baroomo ka ahaa degmada 26 Juun waxay ka kooban tahay 5 kun oo cod 5 kun oo cod la igu aaminay Cabdallah wuxuu maanta xildhibaanada igu aaminay weeyaan ka filimay ee ka sareysan weeyaan ilma
meel kasii saraysanaysiin diba mooyaane halkaa ka filmaayo xukuumad iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo beeshaydaba waxaan ka rajaynayaa in codka iyo cududaaba isku diyaariyaan iyo bahweyntii ardayda ee 15 sano dugsiga sare 26 juun ee maamul ku-xigeenka ahay aan kula soo shaqaynayay iyo degmada xaafadda 26 juun ee 5 kuna codyaalaan iyo gaar ahaan xaafadda goljomo waan ku dhashay oo intaas sanaan soo dhex taagnaa oo day kubad iyo day macallin noqotay iyo day ardaynimo noqotay baan taagnaa iyagana day ka filmaayo anaga reer goljomaana la yidhaayo ciyaar goljomo haddaad maqashaan halkii uu ku dhashay uu ku dhalay ciyaar goljomo macnaheedu wax kalama odaweynoodka dabaadijina ma aragto odaweynoodka dabaadijina wuxuuna ciyaar goljomo wax kalama ahay halkuu ku dhasho uu ku dhalay marka halkii uu dhaafin weeyo qortii marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala tolweynahayga sharafta leh wixii shuruudaa ee tobkii horkeena nin buuxinayaa insha allahu tacaala ka baqan maayo xoolihii dhaqaalana uma soo doonan aniga laftigayga xoolihii dhaqaalo waxaan ayaaba hurayaabaa leeyahay wix alla wixii caqabadee hor yimaada insha allah waan ka gudbi doonaa khayr badan baan rajaynayaa inta bugta allah inoo caafiyo intii dhibaatayna allah ha naxariisto inteena noolna waxaa leeyahay bogeena burcadallah isu keen marayo kuwii hadaf wada yeesha ee hadafkooda ilaahay rumeeya allah inaga dhigo nin kastaaba kolley waxba calooshkaayo waxa caloosha ku haya ilaahay qalbigiisa ha u raaco oo macsi lahayn dhammaan waxaan rajaynaya qaranka somalilan guul baan u rajaynayaa tolweynahayga meesha cabdallah muqadar guul baan u rajaynayaa insha allahu tacaala haddii aan soo baxana waxaan rajaynayaa inaan tobkayga iyo qaranka jamhuuriyadda somalilanba horumar gaadhsiin doono oo shil inta qaato ana qarankayga waxba dhaafsan doonin taana oo ballan qaadayaa dhammaan waxaan leeyahay codku baan ka filayaa doorkaana